madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa siyaasadiisa mucaaradka ay ku dhaxamoodeen jidka ka soo xiriirtay shisheeyihii dhuuran jiray dheefta dhulkeena. haddii uu tago muxuu kaga tegay madaxweyne farmaajo? weli ma haystaa taageerayaashii shacabka? ma xun tahay rajadiisa soo noqoshada 15 bisha May? ma waxay noqon doontaa maalinta murugada shacabkeena oo waxay hareerka la weydaarin doonaa farmaajo? se waxay noqon doontaa maalinta murugada iyo rajabeelka shisheeyaha ay Kenya horboodayso? kaga bogo inta barnaamijkan oo sii shargare marka hore muwaadin. shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hanaanka doorashada. waxaan alla ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhameeyo jawi nabdoon naguna hago dhabaha horumarka iyo waxqabadkii 5 sano ee la soo dhaafay madaxweyne farmaajo lama soo koobi karo. mushaar kordhinta iyo mushaar bixinta ciidankii shaqaalaha ee 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu kor u qaaday tayeenta qalabeenta ciidanka xoogga dalka sida ciidanka gaarka u tababaran Haramcad, Gorgor, Gaashaan, Duufaan, Danab oo ciidan cududi awood leh oo aad maanta looga cabsi qabo. farmaajo waxa uu xayray madaxdii maamulada heshiisyada shisheeye ay la geli jireen. waxa uu xakameeyay awoodii beesha caalamka iyadoo oo Soomaalidu uu tusay in dalka laga ceerin karo qof kasta oo ku xadgudba sharafta Soomaaliya. waxa uu saacado kooban oo gudaha dalka uga saaray ninkii awoodda badnaa ee Jenaraal Gabre. farmaajo waxa uu dib u soo celiyay hawadii Soomaaliya oo dalal shisheeye laga maamuli jiray. farmaajo waxa uu dib u soo celiyay badii Soomaaliya taasi oo sababtay inuu cadow badan ku yeesho oo hadda ay ka mid yihiin dalal shisheeye oo hadda ay ku rajo weeyeen in ay karkaarka weedaariyaan. waxa uu sabab u noqday farmaajo in Soomaaliya deentii lagu lahaa 30 sano kadib laga cafiyo. madaxweyne farmaajo waxa uu dhisay masraca qaranka, madaxafka qaranka iyo goobo kale oo taariikhi ah oo ay ku xusan yihiin halgamayaasha sida taalooyinka, isagoo sidoo kale hirgeliyay laamiyaasha iyo goobo kale oo aad u qurux badan oo ka hirgeliyay qaar ka mid ah gobolada dalka. waxa uu amniga qaranka gacanta u geliyay ciidanka xoogga dalka isagoo shisheeyaha ka saaray awoodda. waxa uu boqolaal habeen ku hoyday gaashaandhiga. waxa uu horseed u ahaa duulaankii guuleystay ee cadowga. waxa uu qayb ka mid ahaa soo celintii sharaftii iyo sumcaddii Soomaaliya. sidoo kale in ka badan 2,000 oo dhalinyaro ah oo ay ku jiraan xabsiyada dalka sida Liibiya, Aasiya iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dalalka ayuu ka soo saaray iyagoo qaarkood markii dambe u laabtay dalka sheegay in ay naftooda u huri doonaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aad baan u mahadcelinayaa. isagana runtii wallaahi naftayda xataa diimaanta ilaa ma jiraan jiraya madaxweynaha. waxaan Soomaalida ama dhalinyarada khayrkay ku fikiraysaa in ay taariikheed ay dalkooda ka tagaan. wallaahi maanta dalkooda cid u dhaanta ama wax dhaama ma jiro. haddaba muwaadin ma taageersan tahay soo noqoshada madaxweyne farmaajo? muuqaalkan sii sheer garay si uu gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed.